Asalaamu calaykum halkaan naga daawanaysiin oo wanaagga qoyskaala uu barateen warka ugu dambeeyey faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaya fal isugu jira dil iyo dhaawac oo saakay aroortii hore koox hubeysan ka geysatay qeybo ka mid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir kuwaas oo dhacdada kadibna goobta iskaga baxsaday. Kooxdan oo ku hubeysan bistooladooyin ayaa weerar gaadmaha ku qaaday haweeney ku sugnaa degmadaasi xilli ay raacayeen moodo kuwaas oo kusii jeeda goobta shaqadooda. waa kan wariyaha noogu soo waramo dhankaasi Muqdisho Xasan Bibi waxaa warbixin kooban kasoo diyaariyey. kooxo madaxyaal ah ayaa toogtay laba haween ah oo saarnaa mooto bajaaj xilli ay ku sugnaayeen degmadaasi Daynile. haweenka la weeraray ayaa saarnaa mooto bajaaj waxaana dhintay laba haween ah halka laba kale ay ka badbaaday. haweenka dhintay ayaa lahaa uurka ilmo ku siday. lama oga sababta rasmiga ah ee loo beegsaday haweenkan, balse laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wada baaris. waxaa baxsaday kooxdii dilka geysatay sida dadka deegaanku ay ku warameen. allaha u naxariisto hooyooyinkaasi oo lagu dilay degmada Daynile. magaalada Muqdisho amnigeeda ayaa u muuqda baryaha dambe inuu faraha kasii baxayo, iyadoona habeen kasta meedad lagu arko duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan ceelasha biyaha. dad aan la garanaynin cidda dishay iyo waxa loo dilayba. haweenkan ayaa lala dhakafaaray sababta loo beegsaday, walow ay aada u yar tahay in haweenka la beegsado magaaladaasi Muqdisho, laakiin haatan ayay u muuqataa in aan la garanaynin kooxahani ujeedada ay ka lahaayeen inay haweenkaasi beegsadaan.